waayahay bismi illaahi raxmaan raxiim shacabka sharafta leh ee magaalada doolaado aad iyo aad u mahadsantihiin marka la eego sida ay u fog tahay iyo sida ay u tahay xarun dhaqaale oo deegaanku uu leeyahay way habboon tahay iyadana in airboort lagu sameeyo marka waxaan hadda aan qorshaynaynaa inaan soo dirno tiim daraasaad sameeya oo airboortka sidii uu noqon lahay waxaa ka shaqeeya in la soo diro ayaan iyaduna go'aansanay hadda aan gelaynaa annagoo la kaashanayna dowladda federaalka waxaa kalood ka hadasheen hosbitaal iyadana hosbitaal meeshan shacabka intaasoo boqolaal kun oo qof ay joogaan way mutaysatay in la sameeyna way tahay insha allah qorshaha sanadka dambena waa ku darsanaynaa haddii la yahay xukuumad ahaan arrinta kale jidka waa hawlihii berigii hore ee nimid meeshan lagala hadlay waan ka howlgallay waxay maraysaa hadda in jidka laamiga ah ee nageyle ilaa iyo suufka qandaraaskiisii qaybtii koowaad in hadda la dhejiyey oo la bixiyeyba marka jidkaas marka la sameeyana runtii doolacadda iyadoo markii horeba ahayd meel barwaaqo soorana oo dhaqaalo leh waxay noqon doontaa meel si toosa ugu xidhan dalka intiisa kale ay noqon doontaa haddii la yidhahdo marka ballanqaad maaha waa shaqo hadda qandaraaskeedii la dhejiyey oo la bilaabay oo aan filayno in dhowaan dhaqaaqeeda aad aragtaan dhinaca laydhka dhibaatooyin baa ka jira waayo waxay noqonaysaa in laga soo jiido ama godoy ama filtu oo kale laydhka 24 saaca kolley rolintan la egi wuxuu u baahan yahay in laydhka rasmiga in loo keeno uu u baahan yahay gridka inta kaas lagu jiro hawshiisa sidii kale ee magaalada leyd loo gaarsiin lahaana waan ka tashanaynaa dila ama solar ha la isticmaalo ama generator ha la keeno arrin inta maarta leydhkaas la keenayo laakiin xalka waara waxa weeye in leydhkii 24 saaca ahaa la soo jiido taana waan ka howlgelaynaa haddii la yidhahdo dhinaca mashaariicda waa run doolacaddo sanadkan waxyaala fara badan lagama fulin laakiin health center hadda la qorshaynayaa jira oo isaguna in la bilaabo la filayo sanadkana waxaa jira in la ballaadhiyo TTC-ga college-ka macallimiinta ee meesha ku yaalla waxaa kale oo jira xabsi laga dhisayo aaggan laga dhisayo maadaama oo dadku ay rafaadaan ay tagaan ilaa jijiga marka ay dad iyaga meelahan u dhashay xaggaa lagu xidho marka arrimahaasi waa arrimo hadda aan bilaabi doono laakiin guud ahaan magaalada doolacaddo waa inay noqotaa xarun ka mid ah xarumaha development center ama xarumo horumarineed laga dhigayo ee shacab ballaaran inay ku noolaadaan ay tahay ee lagu noolaado adeegeedii waxeedii in la keeno sidoo kale reer doolacaddo waxay madaxweyne mustafa ku wareejiyeen oo ay ku maamuseen 100 neef oo geel ah iyo 100 ah maanta waa maalin farxadeed waa maalin cadaalad ku farmayna cadaaladii waad fashay cadaalad waxaan ku leenahay cadaaladina waad fashay taas waxaan ku leenahay oo mid aan ku leenahay maaha ku sii dhaqaaq hore ugu sii dhaqaaqday ku sii wad baan ku leenahay waxaa kaloo rabaa maanta inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha iyo xisbigiisa iyo baarlamaankiisa dhammaan ku soo dhaweeyo oo madaxweynaha ku maamuusan rabaa oo waxaan ugu maamuusaa ay tahay wixii soo marnay dhibaatadan soo marnay iyo 2 jeer intuu joogo meeshaan u imaaday 2 jeer u imaaday meeshaan 2 jeer u imaaday waxa aniga qaasiisi ah oo soo dhaweynta ugu sii daray waxa kamid ah dadkii la dhibaateeyay oo la xiray oo cadaalad Allah keenay bis loo xiribaanaha dadkii cadaalad Allah keenay loo xiribaanaha waxa waay madaxweynaha waxaan ku soo dhaweynayaa 100 geel waxa waaye waa arinta la soo dhaweeyay Soomaaliya soo dhaweeyay arinta ugu wanaagsan waxaan rabnaa inaan madaxweynaha ku soo dhaweynaa haddaan nahay gobolka Liibaan 100 geel inaan ku soo dhaweynaa waxaan rabnaa oo kale inaan ku soo dhaweyna 100 geel iyo 100 madaxweynaha ku soo dhaweynaa